waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobka 8aad farqadiisa afraad oo ah xafiisyada doorashooyinka deegaanka magaalooyinka madaxda gobolada ka dhisan waxay mas'uul ka yihiin fulinta hawsha doorashooyinka ee ka dhacaysa dhulka deegaanka dowlad goboleedyada ay ka dhisan yihiin maadaama doorasho qof iyo cod ah la rabo waa qodobka 8aad farqadiisa afraad ka soo tagna daan uga hadlay waa ka gudbaya مثلا waxaan rabaa anigu in hadii aynu shalay magaalo madax ka soo tartanay maanta in la daadajiyo la geersiyo degmo iyo tuulo oo qofku kursigiisa loo dhigo meesha uu ka soo jeedo inuu ka tartamo hadii la yiri waa ku raacsanahay hadaa la oran aniga ra'yigayga waa taas qodobka 25aad farqadiisa afraad waxa jirta in la yiri xubnaha markay tartamayaan ciidamada qalabka sida shaqaalaha dawladda diblomaasiyiinta iyo xubnaha garsoorka bacda garsoorka waxa jira wasaarado ay wasiirkii iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dawladda xildhibaan yihiin oo ay tartamayaan hadday tartan aadaan wasaaradda yaa looga tegayaa laguma caddayn qodobkaas in wasaaradda yaa sii wada macalagaasimaha guud hadduu tartamayo wasaaraddii iyo shaqadii yaa sii wadaya ila dadku waxay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed waxay u baahan wax shaqadii sii wada halka waxaan qabaa in lagu cadeeyo cidda wasaaradda sii haynays maadaama day ila hadda rawaad xukuumadda waa aragtay wada xildhibaano iyo wasiirro isku wada xiga hadda inta doorasho doontaan wasaaradda cidii sii hayn lahayd in lagu xaqiijiyo sharciga ila inta kale waa la xaqiijiyay qodobka aan ku hadlayo 7aad awoodsiinta shacabka doorashooyinka muddo dheer dalkeenu wuxuu ku jiray 30 sano waa dhibaataysnaa wuxuuna ku jiray dagaal sokeeyo ka soo baxay in maanta shacabku maadaama uu maanta shacabku diyaar u yahay meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadda aad rabto in diilo cusub iyo dawladnimo ay u socono aan la xaqiri karin in shacabka Soomaaliyeed ay maanta qabsan karaan doorasho qof iyo cod ah in shacabka awoodiisa la siiyo gacantana loo geliyo shacabkuna ay doortaan cid xukuumad ah oo laga daayo dalkan ku cuna duuban boqolkii 4.5 waa ku soo shaqeynay meel baan ku soo gaarnay xaq ma aha xal buu ahaa in maanta dadka la gaarsiiyo qof iyo cod xisbiyo faraha badan la soo koobo oo xisbiyo lagu tartamo xisbiyada lagu tartamanayo doorashooyinka lagu cadeeyo ma 3 bay noqonayaan ma 4 bay noqonayaan ma 5 bay noqonayaan yay noqonayaan illa 8 xildhibaan dalay ka tartamayaan waa foodo hor leh iyo burbur hor leh waxaan qabaa in lagu jaangooyo doorashada maadaama ay tahay meesha inuu socdo ilaa 100 sano ilaa 50 sano doorashadan aan dib xagee loo socdaa la sooran in la xaqiijiyo laguna xaqiijiyo doorashada xisbiyadu intee la weeyay maxay noqon bis xisbiyadu noqonaynaa qoondada haweenka waxaan ka rabaa in lagu xaqiijiyo doorashadan reerkii 3 kursi leh inay gabar tahay sidaan hadda ku fadhino kuraasta 9 kursi reerkii 10 kursi leh inay 3 gabdho noqoto in halkan xeerkan waxba ugu macada xisbiyadu inay dhowraan ilaaliyaan xaqiijiyaan baa ku qoran haddaan baarlamaankii sharciga dejintaaba aysan qoondadii ka soo bixin aan doorashooyinkii lagu cadayn xisbi wuxuu dhowrayaa ma dhowrayo marka waxaan qabaa in lagu xaqiijiyo sidii garawa 1 iyo garawa 2 in boqolkiiba 30 ugu yaraan lagu xaqiijiyo sharciga ay hor yaallay aan baasin doono sida ay kuraasta haweenku ay ku tartami doonaan insha Allah intaasaan anagu kaga baxaya assalaamu calaykum